هذا محمد أول سؤال هلا كل ليانا dadweynaha waxaan ka codsaa gudoomiyaha aad loogu kululeeyo su'aasha la weydiiyo xilka noo hayso waxa wixii aan dhaliilaho la dareemay aad loo weydiiyo siyaasiyiinta asaga nagala jooga maanta inta kastoo xildhibaanada iyo wasiir inay meesha joogan ay fiicnaan lahayd dadka siyaasadda ehelka oo ah ayaga waxay ku bixiyaan si dhaqaale ooga sameeyaan ama magac ooga sameeyaan inay xoo ahay ayagu dhaqaalaha ay ku bixinayaan inay magac ooga sameeyaan siyaasadda ooga bixiyaan ay dadkii iskugu diraan ayagu qabiilaadka ayaga isku dirabo xarma inuu noo qanciyo dadkii oo asugu isku diray sidoo asugu hoggaan ooga noqon karo de eedeynta kama marna dhaqanku aad loo eedeeyaa bacmado waa lidinku eedeeyaa maxaa kale da arintaas reer gurcaalna runtii waa yaqaanaan nabad waxa ay tahay iyo colaad waxa ay tahay unuga saqiirka hadii la weydiiyo waa u fahmi karaa tusaale waxa in kugu filan dhacdadii u dambeysay magaalada ka dhacday markay dhacday wixii gurcaal say noqotay hamiinkii koobaad qof walba intii joogtay way fahamsan tahay su'aalahan dhacdadii ka dhacday dhuuso mareebo kaleeto dad magaalada dhexdeeda lagu dilay dadkii meelay fadhiisteen difaaci galeen dawladdu dhab kama aha oo kama go'na ayada ay qabiilkaas inay gacan isku qaadaan qabiilkii laakiin waxa ka go'an inuu gacan qaado wax qaribo wax laayo qabiiladu badanaa heshiisay galaan heshiiska waxa galaan qabiilada ma ah dawladda iyo qabiilku inay heshiis galaan ugu yaraan haddii xataa aan wax kale la weynin dawladdu waa inay qabiilada u bandhigto waxa ay rabto dadka inay ku maamusho waxaa arkaysaa oo aragnayba in aqoon-yahan sheeganaya inuu mutacalim yahay degmadii jooga dhacday Facebook ku soo qoray maamulku dadkii waa isdilayaan waxna ka qabamayaan anagoo dhowr bari ku maqnayn oo dadkii soo qabanay markaan keenay oo dadkii la qabtay dambiilayaasha ahay waxaa noo cadaato baaristii laga helay dadkii saas Facebook ku soo qoray inay dhaqaale ku bixinayeen inuu qofkaas u fakado markii magaalada meel ka baxsan uu qof gacan ku dhigla qof ku dilo waa tagtaan ciidankiina wadataan haddii aad qofkii soo weysaan waxaa soo xirxirtaan oo xabsiga isugu keentaan dad maras ah oo hooyo iyo islaan uu qabay iyo ilmo uu dhala iyo kuwa yaryar aa soo xirtaan adinka ugu danle xanuujinta ninka dilay su-aashaas waxa weeye dadkan birmageedada waxba dhimin ilaahay waxaad qoran ku leeyahay walaa tasiru wasiirata wisra ukhra qof kala dambigiisa qaadi ka dhama jidho marka dadkaas loo ciqaabayo qof kala dambigu uu galay bal taasina noo turxaan bixinaan rabaa saakay dhacday maxkamadan tusaale markaan ugu filay saldhiga tagay qof ka mid ah oo dambiilaha gacan ku dhigla xiran maxkamadii timid maxaa waaya leeyahay markii xiraalinta u timid qofkii wali damka ayaa u yimid wuxuu aniga dacwo ma qabo qofkan in la yahaayana waa raba oo san bixin waa problemkan haystay qayb ka taa waqti aan gelinay juhdi aan gelinay waa raadinay waa soo qabanay markii la keenana wali damku waa diiday inuu maxkamadii tago waxa sheegtay in kiisas la farsameeyay ayada tir ahaan meeqa waa ku sheegay waxaan ku iri ilaa ku dhawaad 20 dhimasho ah dhacday hal sano gudihiis 9 gacan ku dhiglaan xabsiga soo gelin oo la soo qabtay waxaad ogtaana hal gacan ku dhigla la toogtay ilaa hadda kuwana haddaan rajaynaynaa in la toogto marka intii adigu kala xisaabta kala jaro markaas waxaa jirtay culimada xitaa hadalkoodu uu ka sarreey jiray mulugta iyo madaxdii markaas joogtay oo hadday hadal yiraahdaan bulshada iska dhaafe xitaa mulugtu ay qaadan jireen hadalkooda yani maxaa la qabtay waxa culimadu ay dhahayaan haddaan nabad aan soo qabanay maamulka uu dhahay haddaan nabad keenay qofkii dambiilay xataa ma toobad keenan waa meesha ugu yar waay in culimadu xataa ay dhahaan qofkii aan loo keeno la wacdi oo leeyahay dambiya ka dhacay waxba dishay ilaahay u toobad keen danda bahadilin isdib lama ilaahdo dadka mashaakilad markay dhaca loo yiraahdo aabaya kamid ah haddaan maanta wuxuu ku qalday iroor aab waxaan ka daana culimada dhow anoo ku dhalanay waxba iibi sheegaysid nabadoon walbana ama wiilku faca ama wiilkiisaas uu leeyahay marka dhaliish anaga naga daana u dhaliil malihin yaani anagu wixii aan karaamkeena waan ka qaadana ninkii marka toogta hadeertaana intaan la saxiixan ka hor ninkii sii la dilay ninka maanta oo toogta u saxiixayo haddii ninkii sii dilay shalana oo dakana oo ku ogaa ninkii sii oo dilay oo ku ogaa sidoo ninkaas hadda maanta oo ugu xallin doona toogaa noo saxiixa wiilkaaga waa toogaas kiisii shalaba looma toogani asagaana qabeen halka ay dadka jooga anaga waa naga u badan yihiin annaguna waxaan ka hubadana kuwa xagga naga sii jira kuwa xagga jirna waxay ka sii hubaday kuwa koonfurta ka sii jira qolaba wax u dhiibtaa hubkan haddaan loo helin xakamayn
annaga mar waliba waxaan samaynayna dad magaalada ka baxo markaba heshiis u furaynaa dad marka horeba heshiisa ayaan heshiis u furaynaa kuwiina waan kala horaynaa inta hubka laga qaadayo culummada waxaan weydiinaa su-aashaas ah maxay uga soo muuqan waayeen doorkooda oo ayaga maxaa ku celinaya masaajidyada kaliya miyay wax u sheegaan mise bulshada inay la hadlaan ay muhiimadu tahay marka ayadana waxaa meeshii ka maqan inaysan jirin cabsi ah toogaa jirta marka qofku wuxuu aaminsan yahay qofkan inuu qofkii dilaba caadi ila tahay wuxuu aaminsan yahay qofkan dishid odagaagiyaa biri imaanaya waa laga macaamilaa meesha 20 biri miyaa ku jiray mise 30 biri gabar axan la ama maaragtay oo wax dhalayso inaad guursatood haysataay waxaa la yidhi waa nuur haddii aa weydana mid dharkana kuu dhaqada maaragtay salligana kuu samayda iyasoo waxba dhalina in la helaana waxaa la yidhi iyadana waxaa weeyaan waa nolol ayada haddii la waayana waxaa la yidhi waa nolol la'aan arrinkii wuxuu isu bedelay arrin aan looba jeedin caqabada ninkan odaga ka sheekeynay mar walba dhaqaale aadiis ugu dambeyn waxay hori weysay wiilkiisaas iyadoo lacag fara badan loo gaaray in la toogto subaxiya u dambeysay annagu marka waxa aan rabnay inaan ku sino waxa waaye kelmad kasta oo soo jireenaheed laakiin aan wanaagsanayn xalna aan ku wadi jirnay waqtigeeda inay dhammaato la sugno waxaa la yidhi inoo reegaalkacyaha wuxuu sameeyaa la yidhi diyaaradaa la saaray diyaarad markii la saaray diyaaradii kacda meel dhex markay maray ninkii qaylis war maxaa kugu dhacay la qaylinaysaa suurtol beelaya gacantii tolkeena waa ka baxay tii rabbina ma gaarin marka hadda nabadoonadii gacantoodiina waa ka sii baxayna tii maamulka adkaana hadda maanan gaarin ka hor hadla dad yacni mujaamalaad yacni ha lagaa arko kaamirada ficil ahaanne markii kaamirada uu ka tagana ficil aan suubihayn iyo dad laga yaababa kaamiradu inaysan soo qaban laakiin kan kaamirada ka hor muuqda ay ka ficil badan yihiin jiraan qorshooyin dib u heshiisiin bulshada dhexdeeda ah oo maaragtay la iska dhex dhigaayo oo in laga gaaro xal waara laga gaaro colaadaha soo laalaabta maadaama maalin walba ay aad wax ceyrsataan dhibaa dhacaya waxbaa sii ceyrsataan marka si looga gaaro hawshaas inaad maaragtay aad istaraatiijiyada ku darsataan ma leedihiin guud ahaanna qofka shaqeeya eed u qabataa haddaad aragto qof la eedanayo qof shaqeeyo waay marka eedda sidaasaa keenta danaystaana keenee dadweynaha kale ma keeno waxaan rabaa si kooban oo cilmiyeysan inaan idiin weydiiyo dhaqankii haddaad tihiin waa maxay doorka dhaqanka ee ku aadan nabadda iyo horumarka tan wariyuhu uu yidhi yaa xaq idiin siiyey inaad xeer samaysaan xeerka waxaan xaqa noo siiyey xaaladda jirta xaaladii lasoo maraa xaqa noo siisay ilaa goorma iyay sii soconaysaa bacmadow in laga daba qaato qof dhintay lixdaasa yarbaa gaari uu watay uu ku dhuftay maamo wadada mariyay markaasaa waxaa ka muuqatay yarkii inuusan cabsanaynin ama qalqal iska muuqan si hoose baan u wareysto war maxaa jiraan dhaaniyo hawshaas geystay yani anoo caadi ula kaftamaayo waxaan iska daayo dhaaniyo maalin walba wada dhaqameed lacagiga ururiya waxaan waa la xalinayaa maxaa keenaya marka maxay u dhici laadahay in la joojiyo lacagtaas la ururinayo si qof walba uu taxadar u yeesho oo xaq u geysto loogu oofiyo qof dambiile ay fal geystay anaga intaan xafiiska joognay ma dhicin inuu fakado waajibkeeni waa qaadanay waxaan ku guulaysanay oo ilaahay nagu dhareeyay in qof kasta ee deegaankan dhib ka geystay aan gacanta ku soo dhigno wixii intaas ka dambeeya annaga nooma taala marka cadaaladda iyo dhaqanka iyo eedaas cid iska laha aad hadda mar u dambeysay waxa waaye kelinka shanaad ee Itoobiya ayaan ku soo galnay maaragtay in heshiis aan beela dhexdooda marka inagu ka guddi ahaan markasta xubin naga midihi waxay u taagan tahay inay shaqadaas wax ka qabato waa shaqadeeni haddii dawladdu jirto falalku markay dhacaan laba qaaba yani lagu xaliyaa in laga hortago intuu saddex ka hor yani in laga daba tago markuu dhaco badanaa marka waxaa aragnaa dawladdu ama maamulku markaas meesha ka jira in uu ka daba tago falku markuu dhaco kadib ma jira qorshe culummada iyo maamulka degmada iyo nabadoonnada uga diyaarsan in falka laga hortago intuu saddex ka hor waa mahadsantiin waxyar faahfaahin ka bixiyo barnaamijkan waxaa qabanaya waa madasha Aaran Forum sida aad ka arki kartaan boorka Aaran Forum waa madal dood cilmiyeed oo ku saleysan aqoon isweydaarsi meelaha ay diiradda ay saarto waxaa ka mid ah dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada nabadda iyo wax allaale wixii la xiriira arrimo bulsho arrimahaas ay xoogga saartaa ciwaanka horta meeshaan inoo saaran waxa waaye
waxa waaye saameynta ay ku leeyihiin colaadaha qabaa'ilka nabadda iyo horumarka ciwaanka waa inta ciwaankaas waxaan rabnaa inaan la fagurno waa saameynta qabaa'ilka colaadaha qabaa'ilka ah ay ku leeyihiin nabadda iyo horumarka